suuraddii dumarka weeye macnaheedu waxaa loogu magacaabay suuratu nisaa xuquuqda dumarka aada uga warantaa suuraddan oo cid aan xuquuqaan cid kala siinin baa ilaahay uu siiyo suuraddan ku sheegay bilowgeeda dhammaadkeeda iyo dhexdeedaba dhinaca kale kolka laga eego suuraddu waxayna baraysaa xuquuqa alusra xuquuqda qoyska mar dhexdeeda waa inagii ka soo warannay asbaabta ama sababaha keena kala tagga qoyska waxaa ka mid a inaanay labada qof aqoon u lahayn xuquuqda xaaska oo inantii waxaa laga yaabaa inay miyi iska joogtay oo aan xuquuqdaa loo dhigin waxaa laga yaabaa inay magaalo iska joogtay laakiin iskuulkun loo dhigay oo biology iyo chemistry iyo physics midho lagu daldalay dabeetana carash inan markay meel gaadho iyadoo maadigeedaa iska dhigata ayuu inan caashaqayaa horay buu ka kaxaysanayaa walaa tacrif min xuquuqi zawjiyati shay-a waxna ka garan mayso isaguna sidaasoo kale weeye goordhow markay kulmaan geese yeelanayaan ay isla gelayaan marka maxaa lagama maarmaana labada qof intaanay xaas samaynin inay duruusta aada u qaataan casharada qoyska iyo sida reer loo wado iyo mid waliba muxuu islaamka dhexdiisa xaq leeyahay waynu soo marnay aayaadkaa hore alrijaalu qawaamuuna cala الnisaa bima fadala allahu bacdahum calىa bacdi wabima anfaquu min amwaalihim fasaalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilgaybi bima xafida allah mid walba laba xaq ayuu ilaahay siiyey laba waajibna uu saaray labada waajiba raggii saarani waa maxay ka koobaad waxa weeye alrijaalu qawaamuuna cala الnisaa maamulka inay dumarkii maamulaan waa maamul wanaagsan wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo masruuf wanaagsan iyo wacaashiruuhuna bilmacruuf mucaamalo wanaagsan maamul wanaagsan masruuf wanaagsan mucaamalo wanaagsan maxaa ka macaan dee saddexdaasoo ishele waxba kama maqnaba qofkan wixii hogaaminahee uu baahan yahay iyo tarbiyad iyo difaac ninkii baa qaabilsan sidoo kale wixii ay u baahnaydee maadadaha ee adduun ahaana wuu daboolaya waa mariinkii iyo masruufkii iyo ma'wigii iyo gurigii iyo caafimaadkii sakaatu fidrigii magihii qaadhaankii wax allo wixii xoolo oo dhanba ninkii baa la saaray waxba la weydiin maayo iyada xataa hadday kiishadeedu buuxdo ha u buuxdo wixii sadaqa ay ka bixinaysa waa halkeeda lama saarinba wabimaa anfaquu min amwaalih waxaa laga yaabaa qofku inuu intaasoo dhan daboolo laakiin haddana mucaamaladiisa kakanani ku jirto taana ilaahay waa ka saara wuxu uhi wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan oo la dhaqma saddexdaa waajib isagay saaran yihin maamulka masruufka iyo mucaamaladaa fiican macnaha qofkii ehelkeedii mar hadduu kala soo wareegay dibidejin wanaagsan ay ku nasato oo la odhan karo waa reerkeedii dhabtahaa bay helaysa iyadiina laba waajib baa la saaray intaa iyadoo ka jawaabayso ilahay wuxu uhi fasaalixaatu dumarka raalliyadaha ee wanaagsani qaanitaat xaafidaat labadaasaa u yaalla warkuba intaasu ka urursan yihin qunuudku waxa weeyaan waa aqbalkeen oo wixii wanaagsan ee diinta ku fiican ee dadnimada ku fiican ee reerka ku fiican ee dhaqaalaha ku fiican markuu soo jeediyo waa yahay baa leedahay ma odhanayso waay ama waa ayo waay iyo waayo waa waxa la isku waayo heblaaye waxaa iyo waxaa yeel walaal oo waayo maxaan u yeelayaa balaayaa yeesha xoogaa buu isyargejinayaa u samrayaa marka dambe daaqadu ka baxaya ama albaabka waa la waayayba odayg waa arrinta koobaad aqbalkeenku ragguna mar hadduu dee qiyaadadii leeyahay qofka mas-uulka ah waa yahayd waa muhiim mar haddii wax ka soo yeedhaan waa yahayd waa muhiim laba arrimood baa kala duwan wadatashi iyo go-aan baa kala duwan wadatashi labadoodu way leeyihin shirkad qaaliya bay wadaanoo qoys la idhaah oo mid waliba dantiisa uu ku qabo diin iyo duunyada marka keligii wax kuma qabeeyana waxbay ku qabtaa sida waxbuu ku qabaa nolol bay wada qaadanaya waa zawjayn
way isku lamaan sida labada kabood la wada gashadan kala maarmin marka wada tashigooda way wataano Ilaahay wuxuu wa tamiru baynakum bima'ruf si wanaagsan uga wada tashada arrimaha qoyska iyo wadka laakiin de meel hadii la isugu yimaado oo tala la meeriyo meel go'aan loo baahnayn go'aan waa loo baahan go'aankiina suuragal ma aha in la yiraahdo laba jiw ka soo fulaya laba madaxweynaha go'aan bixinaya shirkadda laba manager baa go'aan bixinaya ciidanka laba taliya go'aan bixinaya taas bay jirtaa adduunka lagama yaqaan waa fawda la yiraahdo isqabsi weey hadii laba madaxweyne go'aan wada bixiyaan dagaal uu ka laba taliya shirkadaas marka wax la wado waa la tashanaya agaasimayaasha la tashanaya laakiin managerka wuxuu leeyahay saasaynu yeelayn Soomaa marka laba midun bay noqon lahaaydo inuu ninku taliyay go'aanka gaaray inay iyadu gaadho xaasku iyo inay wada gaaraantii naga dhig fawday noqotay sunnada adduunyada kuma jirto waxyaabaha ku qasmaa weey inuu isagu go'aanka yeeshay inay iyadu yeelatana ilaahi labadoodaba abuura kala xukumo wuxuu yiri الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض رجع كفي عن قوانك ها ساسوي الدونك أردن ما ترجع بأوتلية دولتهيسا عيدا مديسا أفرتاري مودا ومهمسا سياسة دي دقالها هي حقية وحبرشة تمرية رجبوا كتيرن لكيها هجامية قالية إسلام وارج مركزتا إلى هاي بوت المامي لبضوا بوحوي قوان ويجاري كران وحوي معمول كران رجع كفي عنه الدور إلى هاي marka waa inaanu kaalintiisa dayicin taasi waa taa dumarkiina aqbalkeen baa kowka ah iyo ilaalin wanaagsan fasalixaatu qaanitaatu waa aqbalki waayahay waa inuu jiraa arrin fiican buu keenay hebelo waayahay hadday doonto haba kari weydo markay kala tagaan uu iska dhaqaajiyo odaygu hadday kari weydo waayahay diba odaygii ku filaatay waxa laga yaabaa inaan dib u carooni laakiin haday waaye maxaan u sameeynaa tiraahday sameeyso intii hore ay mushkiladii ku dhacdayba arinta labaadna waxa weeyaan ilaalin wanaagsan oo ruuxan dumarkii amaano weyn baa haysa isagu dabadu ka soo shaqeynaya waxa la wuxuu soo helay uu soo xareeyay waxa ka intiisi waa qasnadiisi waatan wax walba uu ku soo ururiyay oday wuxuu ordaba barafku soo maro bacadku soo maro uu soo xiiqay wax walba keen marka rugtii reerkiiba iyada mas'uulka dadkii iyo duunyadii wixii oo dhan marka ilaalin wanaagsan buu Ilaahay faray caruurtiiba ilaalinaysa aqalkiiba ilaalinaysa nafteediiba ilaalinaysa maalkiiba ilaalinaysa sirtiiba ilaalinaysa tarbiyadiiba ilaalinaysa waxa soo dhan hawsha culusiyada haysta laba midun bay noqon lahayd in la yiraahdo iyada banaanka u bax adigoo isjaqsiinaya ama umula ama isxambaara orad soo shaqeeyo adiguna guriga sii fadhi muruqyadaada kuusan halka la fadhi taasi suuragal bay noqon lahayd laakiin sax ma aha dabada ayaa ku fiican maxaaska uur leh oo umul ah oo ilmihii sidata ayaa ku fiican mise ninka aqliga sharciga sida ay sheegayaan waxa weey ninka ku fiican banaanka iyo orodkiisa iyo soo shaqeynta hawlaha adag iyaduna arrimahan hoose aynu aragnay ku wanaagsanto Ilaahay u doorayno inaguna ka barxaati kacayna marka iyaduna amaanada waa inay ilaaliso isaga waa laba hawlood oo muhiim ah Soomaha iyadina waa laba hawlood oo muhiim ah mid wala saasu kaalin buux isku yahay saasu reerkiis ku dhabaystiraya kuwii taa kala bedelay gaaladuna hadda u soo noqdeen ilaa warwasilcna waan darxumaanay arrinka did ma loo yeeli karaa taa marka laga soo gudba aayaadkan imika aynu marayna iyaguna waxay ka waramayaan ninkii hadduu hinjiyo hore u dhaqaaqo oo tu labaad u guursado rag dabcan kama dhamaada moogti hadduu hore u raqoonsado fulaygu waa iska jiraaye oo tu labaad ay timaado muxuu yeelayaa deetii hore inuu ka tago tadambe jeclaadu la duula maaha laakiin cadaalad baa Ilaahay halkan uu ka waramaya aayadahan soo socda cadaalad labadii qof ninkay isugu yimaadeen labadii xaas waa inuu cadaalad sameeyaa bilowga suuradana waxaynu ku soo marnay fa in khiftum la ta'dilu fawaahida hadda laba xaas sameeynaysan oo ka cabsataan inay u cadaalad sameyn kari weydaan midaada ku ego marka tacadudkii iyo inuu xaas labaad guursado shuruudaha ku xidhan laba u muhiimsan waxa weey cadaaladda Ilaahay uu sheegay waa qofku de naftiisa been uma yaqaan hadduu isleeyahay wallahi musaalim baa tahay nin macaan baa tahay oo kale dhinacuun baa ku muudsanaya ma wada xamili karayso isma dheeli tiri karayso halkiisa ha iska joogo rugtiisa reerkiisa ha iska fadhiyo ilaa uu siqaanaayo
shardiga labaadna waxa weeye inuu masruufi karayo inuu masruufi karayo yaa macshar shabaab man istidaaca minkum albaata falyatazawaj qofka baa shardiga inuu dee masruufi karayo muxuu ka soo lugoynaya haddaan masruufi karayn heerkii wuu burburayaa biil buu u baahan yahay fasakhaad baa imanaysa labadaa shardi baa asaasiya inuu mucaamalo fiicanna kari karayo cadaalada masruufkiina kari karayo laba reer wuxuu ku qaybsamaa laakiin iska jibood oo uu jeclaaday oo wadaadku wuu badiyaa oo dhan walba u rid dumar iyo caruur silcayuunbaa ka soo baxaya waa dhowsana dibjire iyo dowdarra inagu noqdo bulshada burburiya sax maaha taas shuruudahaas u sharcigu ku xidhay marka cadaaladii baa iyadana aayaadka ilaahay xaggaa horena uu kaga warramay halkanna uu ku xusayaa walan tastadiicuu an tacdiluu bayna الnisaaءi walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmayli fatadaruuha kalmucallaqa ma kari karaysaan buu ilahay inaa u cadaalad samaysaan ana idin abuuro idin oge haddaba ha wada leexanina steerinka dhinac ha wada qabanin ee wuu ceerceerayaa gaadhigu bal isku day inaad haadka ku hayso oo aanu kula tallaabin oanu kula taraarin waxaa jira waxyaabo dee maadiyahoo muuqanaya waxyaaba macnawiyaada oo dareenka qofka iyo waxyaabahaasi awooddiisa ka baxsayn intuu kari karo waa inaanu waxba hakranin wixii dad loogu cadaalad samayn lahaa laba arrimood baana kala jira alcadlu walmusaawaa waa muhiim inaynu fahamnaa cadaalad iyo simitaan waxa khaasan cadaaladda islaamku wuxuu had iyo jeer dadka faraa cid walba in cadaalad loo sameeyo xaqeedii ha yeesho laakiin sinaanshuu taa wuu ka duwan yahay oo sinaanshuu marna cadaalad buu noqdaa marna cadaalad ma noqdo waa simitaankan ay gaaladu la cararayaan alxuriyatu walmusaawaat soomaad maqal musaawaadka waa la isku hoos jiraa sinaanshaha dadaan sinayn baa lagu leeyahay sin taasina waa jawra cadaalad maaha waxaa laga yaabaa labadii dumar ahaa ee qofkii wada qabay waxyaaba badan inay ku kala duwan yihin soo maaha tani 10 ciyaal ay leedahay tanina waaba keligeed sinaansho miyuu suuroobaya ma suuroobayo way ku kala duwanaanaya waxaa laga yaabaa midi inay islaam weyn tahay midna ay tahay inan yar midba waxbaa dan u ah mid inay iska wardido halkeeda ay iska fadhidaa dan u ah midna in la ciyaarsiiyo lala baratamaa dan u ah ay xiisaynaysa dee sinaansho ma hadduu islaantii weyneed yidhaha sida taayar aduguna 5 ku tuur oo soo carar waxaynu u daliishanaynaa xaasaskii nebiga sawdaa ka mid ahay oo islaam weyna caashaa ka mid ahay miyuu simay labadaa buu simina sawdi waxay tidhi halkaygaasaan iska joogayaa nabi allah habeenkaygiina caashaa baan ugu daray anigu waan iska digriya caashina waxay leedahay aan baratanno oo labadeennuba aan tartan gallo markaa mid walba xaqeedii buu siinaya tanaa laga yaabaa inay bugto ana waxaa laga yaabaa inay caafimaad qabto midba duruufteedaa loo eegayaao baahideedii baa la daboolayaao cadaalad baa muhiima cadaalad iyo sinaanshihiina waa kaa aynu sheegnayoo qofku waxa uu baahan yahay ka kale aan u baahnayn kan u baahan waa in la daboolo carruurtii baa saas oo kale ah carruurta qaarkood waxaa laga yaabaa inay bukaan qaarkood waxaa laga yaabaa inay waxbarasho ku jiraan qaarkood duruufo dheeraada leeyihiin kan kalea lagu haynayaa lama odhanayo waa in cid walba xaqeedii la siiya marka cumuuman arrintu way dheer tahay waa badan tahay waxaa lagu xallin karaa aayaadka ilaahay uu nagu celcelinayaa ixsaan iyo islaax aayadda hore waxay leedahay wain tuxsinuu watattaquu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira aayadda dambena waxay leedahay wain tuslixuu watattaquu faina allaha kaana gafuura raxiima ta hore waa tuxsinuu watattaquu tan dambena tuslixuu watattaquu markaa waa maxay taqwo iyo islaax maxaan xaq u leeyahay idii gaaladu isla soo taagi jireen dadka muslimiintii maaha ilaahay bay ka cabsanayaan ixsaan bay ku dhex wadaan islaax bay ku dhex wadaan kani isagu u tanaasulaya iyaduna way u tanaasulaysaa iyaguna way isu tanaasulayaan marka alla ka cabsi iyo islaax iyo ixsaan ayaa ilaahay uu farayaa ku abaabulaya in allaha yaamuru bilcadli waalixsaani waitaa'i dilqurba cadaaladda qura laynama farine islaax iyo ixsaankana waa la ina faro aayaadkaba waxaa ku jira wasulxu khayrun wauxdirat ilanfusu shux arrimihii qoyska markuu ilaahay ka warramayo iyo weliba kuwaa la wada qabo suluxaa ka wanaagsan buu ilaahay leeyahay cadaaladda waxaa laga yaabaa haddii cadaaladii qof waliba markiisa eegto in xoqitaan badan yimaado laakiin ixsaankaa iyo islaaxaasa lagu dhex wada cumuuman waxaynu kusoo ururinaynaa waa in la bartaa dhallinyaradana la baraa siminaara loo furaa duruusta la qaadanayo ay noqotaa casharada qoysku si aynu heli karno qoys dhisan oo aan burburinay inoo badbaada allah ina waafajiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu